بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استود نقدر هنيسان وحنا نتكلم هذلنا وجنرال كنا عكت يدنيدا CID برو TV دنا عوررك ورئيسية يوحنا أسوتشوجي على وحنا نقول سعتان ووررك يقدم بدنيدا يولي بدعوين ككل الدول ومركها تاجن sida current affairs waxa afka qalaad loo yaqaano iyo waliba waxaan u soo joogo oo ah sheekooyin hore oo dhacay oo ama dalkii ku saabsan ama adduunkan aynu ku noolnahay ku saabsan qodobkan isaga iyo CID Pro TV waxa uu daaran yahay ama ku saabsan yahay waa dadka muhaajiriinta ah ama dadka loo yaqaano qaxootiga oo ah kuwa ka yimaada meelo kala duwan ee adduunka ee raba inay tagaan wadamo ay u arkaan inay ka faa'iidayaan noloshooda mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba marka la fiiriyo adduunka aynu ku noolaa qaaradihiisa kala duwan waxaa ka jira colaado oo maalinka maanta 2026 la oran karo ugu yaraan 28 colaad ayaa ka jirta adduunka oo tusaale loo soo qaadan karo arrinka Gaza oo aad la socotiin 2023 inuu bilowday ilaa iminkana xaaladdu ay cakiran tahay dad badan ay baaba'een dad badan ay burbureen dhul dhan uu burburay dad badan la leeyahay waxaa xiga dagaalkan 4 sano socda ee Ukraine iyo Russia ayadoo haddaba arrintu ay sidaas tahay ayaa 6 bilood ka hor waxaa soo korortay arrinta Iran ee gobolka bariga dhexe ee Ameerikaanka iyo Israa'iilba ay weerarka ku qaadayaan arrimahaas tusaale ayaa la isaga soo qaatay laakiin colaadahan aan sheegay waxaa ka horreeyay colaado badan oo dad badan barakiciyay qaaradaha Asia iyo Africa iyo waliba Latin America iyo waliba Jazaa'irka kale ee adduunka ku yaala dadkii haddaba deganaa waxay noqdeen laba qayb ka soo cararta colaadahaasi iyo dhibaatadaas oo ka magangalaya meelay isleeyihiin waa ku badbaadaysaan intii ka badbaada colaadaha dalalkooda iyo qayb aan colaadi ka jirin laakiin dhaqaale doon ah oo iyaguna raba noloshooda inay u arkaan inay adag tahay oo ay bedeshaan taasi marka waxay keentay wadamada lagu toonsan yahay in waxyaaliin waa wadamada Europe wadanka Mareykanka oo kale dalka Canada oo kale dalka Australia oo kale iyo waliba dalka New Zealand wadamadaas aan sheegayo waqtiyo kala duwan ayaa siyaabo kala duwan ay dadku u tageen ayadoo qolo walba ay ku xiran tahay dhibku markii uu gaaray waxa intaas dheer kuwo iyagu aan qaxooti ahaan loo geyn laakiin dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 1945 iyaga laftooda dalalkaas aan sheegay oo loo soo magan galay ama loo imanayo dan ay kaliyihiin awgood dadkaasi ay dalalkooda keeneen oo ay maanta jiilkii saddexaad uu ku nool yahay oo laga wado wiilka hadda London jooga in awowihii la keenay wadankan aabihii uu wadankan ku dhashay isaguna uu wadankan joogo sida wadamo badanba ay sidaas arrintu u tahay haddaba dadkaas qaxootiga ah oo qoloba meel ay ka imanaysay wadiiqooyin kala duwan la marayay siyaabo kala duwan loo socday wax diyaarad raacay wax markab raacay wax baabuur raacay intuba waxay ahaayeen inay intooda badan ku dambeeyeen meel aanay islahayn noloshiina ayaa tigi doontaan oo waxaad ka soo qaadaa tusaale dadka Afrika iyo Asia ka imanay oo isla Europe taga ayaa laga yaabaa inay Australia, New Zealand iyo Mareykan iyo Canada ay tageen kuwa isla Mareykan iyo Canada taga inay Europe ay joogaan taas marka macnaheedu waxa waaye qofka magangalyadoonka ah isagu ma laha fursad uu ku sheegan karo inuu halkaas tagi karo maxay dhaqaale ma haysto wadada uu marayo amnigeeda lama oga xaalado ba'an ayaa jira marka haddaba aan tusaale u soo qaadano dhinaca reer Europe dadku aad ayay ugu soo qamaameen dad waxaa jira haddii laga beec mushtari jiray cunooyinka ama qalabka dhismaha ama daawada ama waxyaabo kale dad waxaa jira bilaabay inay ka beec mushtaraan dadka safaradooda iyo socodkooda taasoo macnaheedu uu yahay si tuuganimo ah oo sharcigu aanu ogolayn inay dadka uga soo wadaan qaaradaha Asia oo kale Africa oo kale Latin America oo kale ayagoo waxaan idin geynaynaa meelaha aad rabtiin oo lacag fara badan ay ka qaadaan dadkaas iyaga ah ee waqtiyo kala duwan la soo waday 3 meelood waxa la oran karaa 2 meelood wadada ayay ku dhinteen intii aanay gaarin wahagaag marka la fiiriyo Europe oo kale dadku aad bay laba irdood uga soo galayeen iridu waa irida Mediterranean-ka oo markaas ay ka bilaabanaysay halka koobaad wadanka Talyaaniga iyo jasiirad lagu magacaabo Lampedusa dhinacan kale badda Atlantic-ga taasoo Mediterranean-ka dadka ka yimaada galbeedka qaaradda Afrika Atlantic-ga ayay soo jibaaxayeen intii fursad u heshay aan wadada ku dhiman kadibna Canary Islands dhulka lagu magacaabo jasiiradaha oo ku yaala Spain ayay markaa imanayeen si ay markaa nolol uga raadsadaan oo Spain ay u soo galaan oo kadib sii gudbaan marka arrintu sidaas ayay ahayd oo dhibkaas waa jiray sanad kasta UNHCR oo ah hay'adda ugu qaabilsan qaxootiga dunida oo adduunka ugu qaabilsan xagga socdaalka ee jamciyadda qurumaha ka labadaba waxay soo saaraan
sida 2025 bay u soo saareen inta kun ee qof ee ku dhimata badaha inta ku dhimata dhulka aan badaha ahayn ee saxaraha ah oo ah dhinaca galbeedka qaaradda Afrika wadamada saaxil la yiraahdo iyo dhinaca waqooyiga qaaradda Afrika sida meelaha ay ka soo bilaabaan socodka oo ah Liibiya iyo waliba dalka Tunisia oo dadkaas ay yihiin dadka ku qaraqmay ee ku dhibaatoobay Mediterranean-ka waqtiyo kala duwan oo xalkaasi aanu qumanayn iminka wuxuu yiri media u dambeeyay markaasuu yiri kala siisido iminka 31 July oo jimco ku beegneed iyo sabtidii 1 Agoosto waxaa ka dhacay wax la yaab leh badda marka la fiiriyo u dhaxaysa waqooyiga qaaradda Afrika xagga Morocco laga yimaado iyo Spain waa waqooyiga qaaradda Afrika jasiirad la yiraahdo amaba meel biyood la yiraahdo Ceuta ayaa waxaa yimid labadaas maalmood 78,000 oo ruux oo ka yimid boqortooyada Morocco waa arrin mucjiso ah waa laba maalmood dadku inta badan waa soo dabaasheen sida la sheegay waxaa jira in la isweydiiyay sidee ku dhici kartaa tirada inta la eg inay ka timaado Morocco oo ay soo jibaaxaan oo ay halka biyood ka yimaadaan waxay ku dhici kartaa baa la yiri maxkamad kamida maxkamadaha sare ee wadanka Spain ee Madrid ayaa kol dhaweed waxay soo saartay go'aan ah dadka yimaada badaha ee doonaya magangalyo doonka yaan badda dhexdeeda lagu dhibaateeyaan laga hortagin hal qabto hal eego kadib marka maqleen sida wararkaas ay sheegayaan dadka oo daraso u dhun daloola ay dadkaani soo shibaxay laakiin mucjisada kale maxay tahay marka ay Ceuta yimaadeen oo dadka Ceuta deganiba ay 80,000 qof yihiin kuwa yimidna ay la tiray yihiin magaaladii way degtay isla markiiba ninka qaabilsan Ceuta gudoomiyaha ka ama governorka oo ah nin lagu magacaabo Juan Jesus Vivas ayaa wuxuu la soo hadlay magaalada Madrid iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Pedro Sanchez isla markiiba waxaa tagay military ra'iisul wasaarihi baa tagay dadkii iyaga ahaa 5,000 mooyaane intii kale waa laabatay oo Morocco ay ku laabteen oo waxay u muuqataa markii horeba inaysan nidaam iyo jacayl ku soo bixin iska soo bixeen soo raaceen hiiraac laakiin iminka iyadoo ninka aan sheegay madaxda ka Ceuta oo ah Juan uu ka qodbadeeyo baarlamaanka Yurub 2 maalmood ka hor wuxuu sheegay 5,000 oo kaliya inay joogto laakiin wax badan oo culays ay arkeen talafteedu waxay keentay Spain iyo inay isjiiraan wadamo reer Yurub oo yiri sidee ku dhici kartaa intaas tiro la eg inay timaado arrintaas markaan ka gudubno Lampedusa halka la yiraahdo waa Talyaaniga si aad iyo aad ay iridda laga soo gala u noqotay dib xoog leh ayaa jiray gabadhan iminka ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Talyaaniga dawladda Isbaahaysiga Giorgia Meloni ololaha doorashada 2022 waxay ku gashay haddaan ra'iisul wasaare noqdo qof dambe Lampedusa inta yimaad Itaaliya soo gali maayo hadalkeedii wuxuu noqday biq iyo halbacaad lagu lis ka daro dibadda ay noqoto waxay markiiba samaysay barnaamij kale oo ah inay heshiis la gasho wadanka lagu magacaabo Albania oo ay tiraahdo lacag baan bixinaynaa ciidamaan keenaynaa booliska ee 2 xarumood aan sameeyno 2 xarumood ayaa la sameeyay dadka Lampedusa ka soo gala markiiba waa la soo gudbinaya 2 xarumood ee Albania ayaa la geynay si halka dacwadooda loogu dhageysto wixii la aqbalana dib loogu celiyo Talyaaniga wixii kalena halka ay joogaan ama meel kale iska aadaan arrintii markiiba waxaa dagaal ku qaaday qoliyaha xuquuqda bini'aadamka dacwad ay u gudbiyeen maxkamadda cadaaladda ee Yurub maxkamadda cadaaladda Yurubna waxay go'aamisay Albania albaabada inay isugu dhifato 2 xarumood ama 2 xero ee Talyaanigu ku leeshiyay ee dawladda Albania oo lacagta badan lagu bixiyay sidaas ayaa 2 xarumoodna lagu xiray iminka Yurub markaad fiirisid Schengen fiisada ama dalku galka dawladda Spain markii aragtay booqi ka yimid dhinaca Morocco waxay tiri Spain aniga waa ka xirtay si ku meel gaar Spain lafteeda waxay noqotay qora ku taag marka arrimahaas waa arrimaha carqaladaha keenaya laakiin reer Yurub ay u arkaan inay wax badan ay ka hortageen wax badan ay ka hortagi waayeen waliba Giorgia Meloni markii ay yaabtay tirada dadka ka imanaya Mediterranean-ka waxay u yeeratay haweeneyda gudoomiyaha ama madaxweynaha ka ah midowga Yurub Ursula von der Leyen oo ku casuuntay Lampedusa tiri walaalay saaxiibtay Yurub baan wadanahay kale dhibaatadan ila arag adinka gudoomiye noo si ay uga hadasho wadamada kale ee reer Yurub arrinka Talyaaniga in wax laga qabto markaad fiiridid dhinaca Latin America waxa ka yimaada qaxooti aad u fara badan xagga koonfurta iyo xagga bartamaha dadkaasi waa dad u dhashay wadamadaas waxa uu heliya dad ka tagay qaaradda Afrika sida South Africa oo kale duulimaadyo ayaa tagaya aadaya koonfurta iyo bartamaha America halka bay dadku ka soo soconayaan dhulka bartamaha soo maraya dib badan bay arkayaan Guatemala soo marayaan Mexico marka la imanaya Mexico xuduudeeda laga soo galaya Mareykanka kadib waxa la soo aadaya ama Mareykanka gudihiisa ama Canada dadka Soomaaliyeed waa ka qayb dadka saas oo kale uga yimid dhinaca South Africa iyo Africa ee muddo joogay bartamaha iyo koonfurta America kadibna yimid marka la fiiriyo dhinaca Mareykanka ka soo gudbay ee yimid marka la fiiriyo guud ahaanba ee dalka Canada
waddanka Australia dadka ka taga bariga fog Far East iyo Asia iyo Africa iyaga laftooda way aadaan laakiin dawladda Australia maxay samaysay meelo magaalooyin yaryar oo Jazaa'ira sida Papua New Guinea iyo Nauru ay dadkaasi ku xasilisay xarumo uga samaysay si ay ugu kala dhageysato waxyaabaha ay sheeganayaan marunba mabamba kuwa ay u arkaan inay yihiin hadalkooda hadal jiri kara ay u soo gudbinayaan Australia magaalooyinkeeda kuwa kalena waa la diiday ama halkooda ayaa lagu haynay New Zealand sidoo kale marka la fiiriyo guud ahaanba dadka soo baxay dadka Soomaaliyeed qayb ay ka yihiin dadkaas waagii hore qaxooti dadkeenu ma ahaan jirin waxay ahaan jireen wixii sagaashanaadka ka horeeyay dad wax barta oo yimid dalalka dunida kadibna shahaado qaata ee laabta ama dad dhifa oo ka shaqaysta laakiin markii colaadda Soomaaliya ay dhacday ama ay soo socotay 88 ka bilow 87 ka bilow ayaa dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay qaxooti noqdaan 96 January markii Sanaaniya kala taga ay noqotay dawladda militariga ee meesha ka baxdana waxaa dhacday in qaxooti la noqday in la qaxay Kenya loo qaxay Yemen loo qaxay Ethiopia loo qaxay kadibna dadka sponsoro wixii heli kara iyo waxaan heli karin laakiin dadka intooda badan qaxootinimo ayay ku yimideen iyagoo dalalka adduunka u sheeganayay in dib xoog leh uu haysto dalkoodii ay dhibaato ka dhacday dalkoodii mashaakil uu markaasi uu ku yimid iyo arrimo la mid ah taasi marka waxay keentay in dad badan oo Soomaaliyeed maanta ay hoganayaan oo ay joogaan qaaradda Yurub taasi waxay keentay dad badan oo Soomaaliyeed New Zealand inay joogaan taasi waxay keentay dad badan oo Soomaaliyeed Australia inay joogaan taasi waxay keentay dad badan oo Soomaaliyeed Mareykanka inay joogaan iyo Canada oo wadaaga maaha oo kaliya wadamada aan sheegayo Latin America lafteeda dad ayaa jira wali jira laakiin ayagu ma aanay rabin inay tagaan waxa marka la oran karaa maanta Asia Africa Australia New Zealand Canada America Europe oo dhan waa laga helayaa dad Soomaaliyeed tiradaba ha kala badnaatee waa jirta in colaad ay dhacday Soomaaliya oo dhacay laakiin waxaa jira dadku waxyaabaha la yaab kale oo ay markay u sheegayeen dalalkaas in dib gaaray wala wareysanaya dibka xaguu kugu gaaray xabad miyaa kugu dhacday ul miyaa kugu dhacday seef miyaa kugu dhacday miyaa lagu madiyay qaarkood korkooda ayay tuseen wadamadii qaar waa waxyaabaha la yaab kale oo waxyaha socdaalada adduunka ay arkeen oo kale laakiin ujeedku waxa weeyaan inay xaqiiqo tahay dadka Soomaaliyeed inay dhibaato arkeen dadka Soomaaliyeed inay culays arkeen sida wadamada kale oo adduunka maxaa yeelay qaxootiga labadaba saameyn ay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed oo maxay tahay waxa lagu duceysan jiray Ilaahu abaar iyo colaad midna ha nooga tagin Soomaaliya waxa maanta haysta 2026 aan joognaa colaad iyo abaar labadiiba laakiin waxay ku duceysanayaan in Ilaahay uu ka qaado oo ay noqdaan dad ayagu laabtooda ama qalbigooda burcad isu mariya oo heshiiya oo diintooda islaamka maaragtay waxa ay faraysa yeela oo dulmiga la daayo maxaa yeelay Soomaaliya waxa loo arkaa culayska ugu weyn ee ka jira inuu yahay dulmi Ilaahayna dulmiga ma ogola mana banayn waxaan rajaynayaa marka qaxooti baa la noqday way arag baa la noqday dal aadan iska lahayn waa dareen ku joog ilmihii dhibaata dhacday waalidkii cudurrada ku dhacay inay isfahmaan oo isdaba qabtaan oo qaxootinimadan iyo waxaan markaan laga baxo waxaa jira dad Soomaaliyeed aqoon-yahan iyo wariyaal iyagu aad uga hadlay arrimaha tahriibka oo ka sheekeeyay dhibaatada tahriibka uu leeyahay culayska uu leeyahay oo tagay meelo kala duwan taasoo macnaheedu uu yahay dadka qaar waa la hiyakiciyay oo waxa loo sheegay in hadduu yimaado Europe iyo Mareykan iyo Canada iyo Australia iyo New Zealand 2 toddobaad kadib inuu barwaaqoobayo inuu baabuur wadanayo guri kiraa arrimo badan waxaasi been bay noqdeen maxaa yeelay dad baa been u sheegi jiray maxaa yeelay waxaan xusuusanayaa anigoo cagbadhiga oo daayir dadka Sacuudiga u shaqo tagaa waxay sameyn jireen baabuur qurux badan sida Mercedes-da iyo Land Cruiser-da ayay isku sawiri jireen intay hortooda istaagaan markaas waxay dhihi jireen baabuurkayga ayaan ku santeeca ama aan ku tiirsanaa taas waxay keentay in dad badan ay Sacuudiga aadaan ay u arkaan marka la tagaba markiiba in wax la helayo marka dad badan ayaa jira oo dadka qurbaha jooga kiciyay oo yiri pizza iyo dalban isug telefoonka leenka pizzadan ka jawaabaya maanta diyaarad baan raacaya meelhablan tagaya kan baan yeelaya iyo arrimo lamid ah waxaas oo dhan waa waxa dadka kiciya laabtooda laakiin dad baa ogaaday in waxaas ay been yihiin dad baa ogaaday in dadka baraarujiyaan dad baa ka sameeyay filimo dad baa waxay booqdeen Afrika oo halka dhibaatadu ay ka soo bilaabanayso dad baa tagay Europe markii la yimid America oo dadka wareystay maxaad filayday intaadan qaxooti noqon markaad timid maxaad aragtay xaaladdu waa sidee arrimuhu waa sidee iyo waxyaabo lamid ah waxaan tusaale idin soo sii karaa channelkeena CID Pro TV ee wararka wareysiyadii waxaan u soo joogay cagmadhiga waa wariye laakiin ma isweydiideen yaa waaye directorka ama agaasimaha ama chief editorka ama tiftiraaha guud
waa liibaan cagbadhiga waa saag salad oo dad badan ay garanayaan. wuxuu safar ku tagay wadamo ay kamid yihiin Kenya, wadamo ay kamid yihiin Norway, Australia, Switzerland, Faransiiska. ujeedkiisu muxuu ahaa Talyaaniga inuu soo wareysto dadkaas qaxootiga ah. qayb kamid ah ayaan iminka idinka tuseynaa anigoo hadlaya, laakiin iyadoo ah cinwaankeeda oo buuxa dhibaatada tahriibka ayaa channelkeena CID Pro TV aad kala socon doontaan. barnaamijyada noocan oo kale ee arrimaha bulshada, arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha oo aan wararka ahayn. CID Pro TV waa xog sugan. cagta xaaji saaxiibkiin wariyihiinii iyo guud ahaanba bahda CID oo isku duuban ayaa idin diyaara. mar walba CID markay aragtid subscribe-ka haddii tahay YouTube-ka, Facebook-ka, weliba waxaan idinla socodsiinaa in qaybtii xayeysiiskuna aanay meesha ka maqnayn. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo qatimo qaybtii ku saabsanayd arrinka dadka muhaajiriinta ee dibadda ka yimaada ama dalalka dunida ee usoo magan gala wadamaday u arkaan inay uga badbaadayaan colaadda ay kasoo carareen ama dalkoodan colaad ahayn dhaqaale doonka ay yihiin. tan iyo kula dambe cagta xaajiye bahda CID oo isku duuban. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.